السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا aan jecelnahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha qodobada aydan kugu haynana waxaa kamid ah kooxda Manchester United iyo kooxda Roma oo caawada ciyaaray semifinalka tartanka qaaradda Yurub kulan ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa waxa ay guusha ku raacday kooxda Manchester United ciyaartan oo ah quarter finalka tartanka qaaradaha Yurub ayaa waxa isku soo haray afar kooxood oo kala ah kooxda Manchester United iyo kooxda Roma iyo kooxda Arsenal iyo kooxda kale ee Villarreal haddaba waxa isku aaday kooxda Manchester United iyo kooxda AS Roma oo caawa ku wada ciyaaray garoonka Old Trafford ciyaar xiiso iyo xamaasad badneed oo ka dhacday halkaas ayaa kooxda Manchester United kaamkii hore ku dhibtootay ciyaarta ayadoo kaam lagu kala maray 2-1 kooxda Manchester United ayaa ciyaarta oo marayso 9 daqiiqo waxa ay heshay goolkeeda furitaanka kadib markii ciyaaryahan Paul Pogba uu la soo jiiray kubadda difaacyada kooxda Roma kadibna uu kubaddii u dhiibay ciyaaryahanka Bruno Fernandes oo asigana u bedelay gool hase yeeshee qalad ay gashay kooxda Manchester United ayaa waxa sababay in kooxda laga dhigo rigoro halkaas uu kooxda Roma ay ku heshay goolkeedii barbarada ahaa isla kaamkii hore ayaa waxa gool labaad u raaciyay kooxda Roma ciyaaryahan Dzeko oo ciyaarta ka dhigay 2-1 hase yeeshee markii ciyaarta kaam isku soo laabtay ayay kooxda Manchester United weerar cid iyo dhul waxa ay ku qaaday garoonka qaybta ay ku dheelaysay kooxda Roma ciyaarta waxa goolka barbaraha u soo celiyay kooxda Manchester United Edinson Cavani daqiiqadii 48aad bilowgii qaybta labaad waxa uu dhaliyay gool aad u qurux badnaa oo uu difaaca ka soo xeeladeystay ka hor intii aanu kubad awood badan ka gelin dhanka koornada kore gool hayahana uu haweysan waayay Edinson Cavani ayaa mar kale ku soo laabtay goolka asiga oo dhaliyay goolashii xeeladeysigaha ee waqtigii Roma uu kula xifaartami jiray wadanka Talyaaniga camal ahaa hase yeeshee Smalling ayaa qalad ku galay Cavani mar labaad ayadoo taasna ay sababtay in loo dhigo rigoro kooxda Manchester United rigoradaasna waxaa qaatay oo u istaagay ciyaaryahan Bruno Fernandes oo ka dhigay ciyaarta 3-2 asoona dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta ciyaaryahan Bruno Fernandes oo ah ciyaaryahanka ugu saameynta badan ama ugu dadaalka badan kooxda Manchester United xil ciyaareedkan ayaa waxa uu sidaas ku dhaliyay goolkiisii 26aad dhammaan tartamada oo dhan ee xil ciyaareedkan Manchester United ayaa muujinaysay awood badan ayaa heshay fursad kale iyadoo kubad Cavani loo hordhigay goolka uu isku day in uu cirib ku dhameystiro balse aanu u suurtagelin Paul Pogba ayaa si dhab ah u niyad jabiyay Roma daqiiqadii 75aad waxaana kubad uu Bruno Fernandes ka soo qaaday dhinaca midig ee garoonka uu ku qabtay madax awood badan oo goolhaye Lopes aan siinin wax fursad ah Mason Greenwood oo asigana bedel ku soo galay ayaa waxa uu soo afjaray bandhigii goolasha asigoona dhaliyay goolkiisii ciyaarta ka dhigay 6-2 kooxda Manchester United ayaa khamiista dambe waxa ay u safri doontaa garoonka Talyaaniga ee Olympic kulan kula soo ciyaari doonta kooxda Roma dhanka kale waxa ciyaaray kooxaha Arsenal iyo Villarreal kooxda Arsenalna waxay guuldarro 2-1 ka soo gaartay kooxda Villarreal oo ku dheelaysay Emirates Stadium Arsenal ayaa ayadana khamiista u safri doonto kooxda Villarreal haddii Arsenal kulankaas eber ku dhamaado ama 1-0 looga badiyo ama 1-0 ee Arsenal ku badiso waxa hari doono Arsenal waxaana final markaas ugu imaan doono kooxaha Villarreal iyo kooxda Manchester United haddaba waxa ay kula tahay fakarkaaga nagu la soo wadaag dhanka kale ciyaar xiiso leh oo la sugayay horyaalka Isbaanishka oo marayo meel xasaasi ah kooxda kubadda cagta Barcelona oo guul darro 2-1 xanuun badan loogu xambaariyay garoonkeeda Camp Nou kooxda Granada oo dabka ku sii shiday horyaalka Isbaanishka horyaalka wadanka Isbaanishka ayaa ah sanadkan sanad xiiso gooniye leh kadib markii saddexda kooxood ee hogaanka wada hayo ay isku wada dhibcan yihiin dhammaantood ayadoo kooxda Real Madrid isbuucii hore barbara ay gashay
la filayay in ay ka faa'iideysato kooxda Atletico Madrid ayaa aydan laga badiyay, hase yeeshee waxaa kasii darnaaday kulan ay sugaysay kooxda Barcelona oo dheeri u ahaa oo haddii ay caawa qaban lahayd ay badin lahayd horyaalka Isbaanishka loo saadaalin lahaa, ayadana ay caawa fashilantay oo garoonkeeda Camp Nou looga badiyay. Kooxda Barcelona ayaa Leo Messi waxa uu gool u dhaliyay qaybtii hore ee kulanka, ayadoo kooxda Barcelona ay ahayd qaybtii hore kooxda inta ugu badan ciyaarta maamuleysay, waxaase ayadana qaybtii dambe ciyaarta looga dhigay 2-1 oo ayada guuldarro lama filaan oo xanuun badan dhabarka loo saariyay kooxda Barcelona, ayadoo ciyaarta 1-1 ah 11 daqiiqana ka dhiman tahay ayaa kooxda Barcelona waxaa gool madax aad uga fog goosha ka dhaliyay Jorge Molina, ayadana kooxda Barcelona ay guuldarradan ka horjoogsatay inay la wareegto horyaalka La Liga, waxayna hadda fadhidaa kaalinta saddexaad iyadoo 2 dhibcood ka dambeyso Atletico oo horyaalka hogaaminaysa iyo Real Madrid oo ay isku dhibco yihiin balse farqiga goolasha kaga horeyso kooxda Barcelona. Dewan Magis oo garnaada kaga ciyaaro garabka bidix ayaa waxa uu noqday xidiga garoonka, wuxuuna ahaa laacibkan xidig qaybtii hore dhan iska taagan garoonka dhexdiisa oo saameyn badan aanan ku lahayn kulanka. Magis oo u dhashay wadanka Venezuela ayaa dhibaato badan ku abuuray Gerard Piqué iyo Samuel Otamendi, waxaana ugu dambeyntii uu ka dhaliyay goolka barbaraha ka hor intii aanu Jorge Molina goolka guusha keenin. Waxaa kale oo isaguna ammaan badan u qalmay difaaca dhexe ee garnaada Victor Des oo qiimeynta ay warbaahintu qaarkood sameeyeen ay kuba sheegeen in uu ahaa xidigii garoonka. 5 laacib ee Barcelona oo guuldarrada u horseeday. Barcelona ayaa ka dhimatay difaaca, waxayna ogolaadeen in 2 gool laga dhaliyo xilli weerarka iyo qadka dhexe ay si daciifnimo u ciyaareen. Samuel Otamendi oo muddo uu kaydka fadhiyay kadib loogu soo bilaabay ciyaarta ayaa ahaa laacibkii ugu liitay dhammaan ciyaartoyda Barcelona ee safkii kusoo bilowday, waxaase aan waxba dhaamin oo isaguna la mid ah Sergio Roberto, halka difaacyada kale ee Mingis iyo Jorge Alba iyo Gerard Piqué ay iyaguna ceebeysnaayeen. Haddaba asxaabtan aan jecelnahay waa arki doonaa wixii ay ku kala baxaan, waxaana ka haray 5 kulan horyaalka wadanka Isbaanishka, ayadoo hadda